السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داودياشا كحيران مقال بهيها عالمي daljoog media show كسو دواده وركي هبينيمو madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka hadlayay arrimaha federaalka ayaa waxa uu ku dheeraaday sida loogu baahan yahay in la helo dawlad dhexe oo awood leh. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo khudbad ka jeedinayay jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ayaa ka hadlay khilaafka xooggan ee u dhaxeeya dawladdiisa iyo waliba madaxda maamul goboleedyada qaarkood. sidoo kale waxa uu intaasi raaciyay waxyaabaha looga baahan yahay oo ay muhiim u tahay in la helo dawlad dhexe oo awood leh. maxaa yeelay waxaan rabnaa ayuu yiri dawlad dhexe oo xoog leh, dawlad dhexe oo ciidan leh, dalkana difaaci karta. waxaan rabnaa dawlad dhexe oo arrimaha dibadda si wanaagsan oo la tacaamusha, dawlad dhexe oo xuduudaha dalka si foojigan u ilaalisa. dawladda dhexe iyo waliba maamul goboleedyada ayaa inta badan waxa ka aloosnaa khilaafyo heerar badan soo maray. xiisadii ugu darnayd ayaana haatan ka taagan Galmudug, taasi oo u dhaxaysa madaxda maamulka Galmudug qaarkood iyo waliba sidoo kale dawladda federaalka ee Soomaaliya. madaxweynaha dawladda Puntland mudane Siciid Cabdullaahi Jeni ayaa maanta qada sharaf ugu sameeyay madaxtooyada Garowe qaar ka mid ah generaalada Puntland. kulankan qada sharafta waxa madaxweynaha ku weheliyay madaxweyne ku-xigeenka dawladda Puntland mudane Axmed Cilmi Ismaan Crash, saraakiil ciidan iyo waliba la taliyaal dhanka amniga oo kulanka qayb ka ahaa. kulankan ayaana salka ku hayay sidii xog waraysi guud oo la yeelan lahaa madaxweyne Jeni generaalada ka soo jeeda dhulka Puntland ee ku suntan taariikhda dhismaha ciidanka Puntland. ugu dambeyntiina madaxweynaha dawladda Puntland mudane Siciid Cabdullaahi Jeni ayaa mas'uuliyiinta kala tashaday xaaladda amni ee Puntland, taasi oo ku dhisan wada tashi, tala wadaag iyo wax wada lahaansho. generaaladuna waxa ay ka mid yihiin waxgaradka iyo waliba indheer garadka dalka guud ahaan Soomaaliya iyo Puntland. dambeyntiina dawladda boqortooyada Sacuudiga ayaa shuruud adag hor dhigtay maamulka Somaliland, taasoo lala xiriirinayo xoolaha Soomaaliya ee sanadkan loo dhoofinayo dalka Sacuudiga. dawladda Saudi Arabia ayaa Somaliland u dirtay warqad ay ugu sheegayso in sanadkan warqadda caafimaadka ee xoolaha loo dhoofin doono Sacuudiga ay bixinayso dawladda federaalka ee Soomaaliya, halka ay markii hore bixin jirtay Somaliland. wasiirka xanaanada xoolaha iyo waliba kalluumaysiga Somaliland oo arintani ka hadlay ayaa sheegay inaysan aqbalaynin go'aanka ka soo baxay dawladda boqortooyada Sacuudiga. xoolaha Soomaaliya ayaa inta badan laga dhoofiyaa dekada Berbera, taasi oo ay maamusho Somaliland, waxayna bixin jirtay warqad caafimaad oo ogolaansho sanad walba. waxaa malaayiin xoolaha loo dhoofiyaa dalka Sacuudiga kuwaas oo laga qaado dalka Soomaaliya, balse sanadkan dawladda Sacuudiga ayaa waxa ay doonaysaa in warqadda ogolaanshaha ee caafimaadka xoolaha ay ka timaado xukuumadda Soomaaliya ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho. lama oga go'aanka Sacuudiga sida uu saameyn ugu yeelan doono dhoofka xoolaha Soomaaliya oo intooda badan laga dhoofiyo magaalada Berbera. Somaliland ayaa hadda wajahaysa laba xaaladood oo kala daran, iyadoo in ay hoos tagto xukuumadda Soomaaliya ee Muqdisho iyo waliba sidoo kale inay iskaga tanaasusho malaayiin dollar oo ka soo gali jirtay dhoofka xoolaha nool.